maanta waxaan joognaa degmada Woodwood waxaan sameynaa inaan soo bandhigno xaaladii dhibane Aamina Maxamuud Fardaale oo dhawaantay aan baadiyaha ku booqanay Aamina waxa uu soo gurmaday dad badan oo Soomaaliyeed oo dunida daafaheeda jooga waxaan rabnaa Aamina wixii soo gaaray bulshadaas u qabatay inaan halkan uga mahad celino waxa dhinacayga taagan Axmed Cabdilaahi Fardaale oo ahaa mas'uulkii lacagta Aamina ay ku soo dhacaysay ee ku qornayd iyo Farxaan Jaamac Warsame oo odayaasha deegaanka kamid ah hooyadii dhashay Aamina Maxamuud Fardaale iyo Aamina lafteedii oo yana nala joogta waxaan nala jooga Xirsi Maxamed Cawad oo isna odayaasha deegaanka kamid ah Aamina waxa runtii xaaladeeda markii aanu soo bandhignay u soo kacay dad badan oo Soomaaliyeed waxay noqotay xaaladii koowaad ee Aamina aanu qabanno in aan geedka ka soo furno isla markaasna aan keenno degmada Woodwood markii aanu keenay waxa dadkii nagala shaqeynayay xaaladda Aamina ay nala qaateen ama ay yiraahdeen oo nala taladii ka soo baxday in Aamina dhakhtar degdeg la geeyo Aamina waxaan geynay magaalada Hargeysa waxaan u geynay dhakhtar Gaboose oo ummadda Soomaaliyeed runtii ay si weyn u wada taqaano wuxuuna xaaladeeda caafimaad uu ku sheegay in ay muddo sanada ay qaadato dawo markii uu baaray xaaladeedana uu ogaaday Ilaahay subhanahu wa ta'ala amarkiisa waxaan ku soo celinay magaalada Woodwood isagoona dhakhtarku tala noo siiyay in Aamina aan geyno hoy ay ku noolaato ay si fiican ugu noolaato iyo waliba meel ay cunto fiican ay ka hesho runtiina aan meeshii baadiyaha aan lagu celin sida darteed baan Aamina aan ku soo kaxaynay oo aan ku keenay magaalada Woodwood Aamina dadka u soo gargaaray ama lacagta nagu soo dhacday aniga iyo Axmed waxay noqotay $8,930 runtii waxa jira dad iyagu lacaga soo ururiyay oo dadka muxsiniinta ka soo ururiyay isla markaasna iyagu hormuud ah waxa kamid ah Xamdi Jaamac Ali oo Sweden joogta gaar ahaan magaalada Stockholm joogta waxay soo ururisay $2,256 Allah subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo runtii ilaa iyo maalinkii aan soo bandhignay muuqaalka Aamina Xamdi waxay ahayd walaal si joogta noola xiriiraya daryeelka iyo xaaladda Aamina Maxamuudna si joogta ula socda Allah subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo dadkii muxsiniinta ahaa ay lacagta ka soo ururisay ay ka soo qaadayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala bedelkeeda ha siiyo waxaan u mahad celinayaa Cabdirasaaq Calolgeele oo isaguna magaalada Hargeysa nagu wareejiyay lacag dhan $1,400 oo isagana muuqaalkiisa aan hore u baahinay waxaan leenahay Ilaahay isagana ha barakeeyo waxaan runtii aan u mahad celinayaa ubax olol oo joogta dalka Mareykanka oo iyaduna soo ururisay lacag dhan $1,100 Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo waa qof runtii dadka deegaanadan SSC ka soo jeeda runtii aad iyo aad mar walba garab u siisa una shaqeysa sidii ay dadkaas loo daryeeli lahaa ubax olol mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waa u mahad celinayna waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa halkan si milgal aan ugu mahad celinayaa Mursal Cabdi Daahir Deeriye oo isaguna walaal Soomaaliyeed oo jooga dalka Norway Mursal waxa uu kafaalo qaaday xaaladda Aamina Maxamuud Fardaale inuu u qorayo lacag dhan $100 bil kasta muddo sanada oo sanadka ay dawada qaadanayso Aamina Maxamuud Fardaale oo dhibanaha runtii aan ummadda islaamka u soo bandhignay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan Mursal u weydiinayaa in Ilaahay uu barakeeyo Ilaahayna subhanahu wa ta'ala badal khayr qabo u siiyo waxaan u mahad celinayaa jaaliyada ama urur dhalinyaro ah oo beesha Yaxye ka soo jeeda oo iyaguna la soo baxay lacag $700 Aaminana ugu talagalay iyagana dhalinyaradaasi waa dhalinyaro group ku kulmay iyagana waxaan leenahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo waxaan kale u mahad celinayaa jaaliyada beesha Wacaysaadan oo iyaguna $400 Aamina u soo diray horena aanu muuqaalkeeda u baahinay
wakiil ay soo dirsadeenna lacagta uu nagu wareejiyey waxaan si mugya miisaan lagu mahad celinayaa dadkii Soomaaliyeed ee joogay dunida daafaheeda ee la soo kala baxay lacagaha tirada badan ee 100 iyo 200 iyo 50 iyo halka dollar isugu jirtay ee runtii telefoonada ku soo dhacaysay ee aamina ugu talagalay waxaan leenahay dhamaantiin idima magacaabi karno ilaahay subxaanahu wa ta'aala meeshii aad ka soo saarteen mid ka khayr badan Allah idin geliyo Allah ha idin sharfo Allah jannada bedelkeeda ha idin ka dhigo dhamaan dadkii nagala qayb qaatay xaaladda aamina si guud baan ugu mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa Maxamed Yuusuf Tigay oo isaguna samafalo Soomaaliyeed oo runtii si weyn loo yaqaano oo isaguna qayb nagala qaatay xaaladda aamina ilaa iyo markii aanu bilownay iyo ilaa iyo haddana aan mar quriya naga joojin xaaladda daryeelka aamina Maxamuud Fardaale isagana waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha barakeeyo maskaxdii uu nagu darsaday iyo muruqii uu nagu darsaday ba ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u barakeeyo waxaan marnaba aan leeyaaweynin Xamse Culujoog oo uu nagu soo xidhay Maxamed Yuusuf Tigay oo isaguna noo fududeeyay in aan dhakhtar Gaboose magaalada Hargeysa aanu helno iyadoo dhakhtarka muddo 3 bilood iyo 4 bilood iyo 5 bilood ba kaarkiisa la isdaba sugo uu noo fududeeyay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha barakeeyo oo ay nagu qaadatay muddo 3 casho gudahooda in aan xaaladda aamina aan ku soo ogaano daryeelkeedana si rasmi ah uu noogu soo dhamaado dawadeedana aanu helno Xamse Culujoog oo magaalada Hargeysa jooga isagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa qoyska Aamina Maxamuud Fardaale oo nagu ixtiraamay hawsha intii aanu haynay mar walbana garab nagu siinayay in ay xaaladdu noo noqoto sida aanu rabno in aanu markaas u fulino hawlaha iyagana aad baan ugu mahad celinayaa waxaan u mahad celinayaa Axmed oo isaguna si khaas ah kana mid ah qoyska Axmed Cabdullaahi Fardaale oo isaguna si mas'uuliyad karti iyo raganimo leh uga soo baxay amaanada Aamina Maxamuud Fardaale isagana waa u mahad celinayaa guntii gabagabadii waxaan leenahay dhammaan ummadii qayb ka ahayd gurmadka iyo daryeelka Aamina Maxamuud Fardaale in ay tahay maanta mid aan guul ka gaadhnay maantana ay noqonayso talaabada labaad ee aanu qaadi doono in aanu soo bandhigno hoygii Aamina ay iska lahaan lahayd oo aanu dhisno booskeedii aan gacanta ku hayno iyo waliba dhismihii insha Allah oo aanu bilaabi doono odayaashii waxgaradka iyagu nagala soo qayb galay iyagana waa u mahad celinayaa si guud iyo si gaar ahaaneed dadka waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idin barakeeyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala meeshii aad deeqda ka soo saarteen mid ka badan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idin geliyo aaminana waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed yaan xaaladeeda halkaas lagu ilaawine aynu mar walba garab iyo gaashaan u noqono sidii aynu qofta dumara u badbaadin lahayn xaalkeedana aynu la socon lahayn waxa weeye arintii waxa badankeedii inoo faahfaahiyay qaralaas iyo ninka liyaa Sakariya Maxamed Ciise insha Allah waxaan kaliya ku darayaa anagu waxa weeye aniga Sakariya maadaama aanu ahayn hawlwadeenadii hawsha oo halka kan ka waday oo Kayroof aanu ahayn insha Allah lacagihiina soo gaaray aniga Sakariya sidoo sheegay oo aan ka wada shaqeynayno ka wada soconay wixii soo gaaray marba iyo si noo soo kala gaareen iyo meel ay ka kala yimaadeen taliya dibadba way lahaayeen insha Allah waxay lacagtaasi tiro guud isku noqotay 8930 sida Sakariya sheegay waa sax sidaas weeyaan waxaan imika rabnaa insha Allah ta'ala lacagtii inaan ku wareejino cibaado bile oo ah hooyada Aamina Maxamuud Fardaale insha Allah dhinaciga taagan waxaan kala rabnaa insha Allah lacagtaas inaan wax ugu qabanno gabadhii aad ugu soo tala gasheen insha Allah ta'ala sidii ay hool loogu dhisi lahaa iyo hantidii ay ku noolaato waxaan kala rabnaa insha Allah inaan halkan uga mahad celino dadkii lacagaha soo sadaqadaystay insha Allah ta'ala ilaahay waxaan ka baryaynaa meeshaad ka soo saarteen wax khayr leh inuu ku bedelo ajar iyo xasanaadna ilaahay idinka siiyo miisaanka xasanaadka idinku daro waxaan kala rabaa inaan halkan ka yar iftiimiyo dadkii uu Sakariya idin sheegay oo kale groupka waxa kamid ahaa kale isaguna group ahaan noo soo gaartay lacag 400 nin la yaaho Cabdullaahi Shire oo aan malayn inuu holan joogo lacagu saasay ahaayeen waa idinka mahad celinayna waxtarka iyo gacanta aad ka geysateen imikana waa idin baahanta cid wax ka geysanayso gacan ka geysanaysa insha Allah ta'ala waa idin mahadnaqaynaa alxamdulillah rabbil caalamiin marka xiga dadka inanta xanuunsanaysa oo silsilada ku xidhnayd hantidooda iyo maskaxdooda iyo maalkooda ugu gurmaday ilaahay baa ka jaasa marinaya
wax khayr lena allah ugu bedelo iyagana waanu mahadnaqaynaa marka xigta lacagtaas ay wiilashu sheegeen gacanta lagu hayaa hooyada gabadha dhashay baana lagu wareejinayaa sidaa ay sheegeen hoyga baa ugu qaalisan wax qof bilaaadni ku noolaado dee mar haddaad la garateen in hoy loogu dhiso annana waa ku waafaqsannahay taasina sidaa weeye ilaahay baa mahadle idinkana waxaan idiin rajaynaynaa wax badan oo khayr leh assalaamu calaykum kulli waa wada salaamantihiin hayoy waa laydinka guddoomay sadaqada waa geysateen waana idiin mahad celinaynaa مغطي من ساعة مغطي ليش تكمل سكن بعدين